بسم الله الرحمن الرحيم saxaafadda iyo doorashooyinka waa mowduuc runtii aad u ballaaran saxaafadna waxaan ognahay doorkeeda inuu yahay mar walbaba inay bulshada u waranto in ay wargeliso in ay xogta u soo gudbiso in inta badan ujeedkeedaba uu yahay bulshada iyo xukuumadda inay u dhaxayso oo waxyaabaha bulshada ay soo bandhigayso sida siyaasadaha oo kale inay u fasirto dadweynaha oo si saxan oo xaqiiqa ugu soo gudbiso doorashada lafteeda waa mowduuc kale doorashada inta badan waxaa la dhihi karaa waa tartan siyaasadeed oo inta badan u dhaxeeya siyaasiyiin iyo xisbiyo siyaasadeed iyo musharaxiin ujoodkooda inta badan ba uu yahay inay ku tartamaan sidii bulshada ay ugu adeegi lahaayeen adeegyadaasi maxay noqon karaan waxay noqon karaan adeegyada bulshada ay u baahan tahay oo ay ka mid yihiin waxbarashadii ay ka mid tahay ay ka mid yihiin siyaasadda dhaqaalaha ay ka mid tahay ay ka mid yihiin iskuullada sidii loo horumarin lahaa ay ka mid yihiin wax walba oo dan u ah bulshada amnigooda sidii loo sugi lahaa marka intaasoo dhan waxay isku imanaysaa marka yaa dan u wada dadweynihii sidii loo fulin lahaa siyaasadahaas kala duwan xisbi walba uu isa soo bandhigayaa musharax walba uu isa soo bandhigaya wuxuu leeyahay howlahaasi anaa si fiican u qaban kara oo kaga wanaagsan xisbigaas kale ama musharaxaas kale doorkii marka saxaafadda muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa in dadweynihii uu u kala bayaaniyo tartankaas guud ee u dhaxeeya musharaxiintaas iyo xisbiyadaas kala duwan oo mid walba si uu u sheegayo inuu isagu dan u yahay kuna guuleysanayo uguna horeeyo waxqabadkaas kala duwan ee bulshada ay ka filayso siyaasiyiinta ha ahaadeen shaksiga siyaasiga ah ee u sharaxan ama xildhibaan ama u sharaxan madaxweyne intaba nin walba wuxuu leeyahay anigaa ka mudan ka kale laakiin saxaafadda doorkeedu wuxuu noqonayaa mid walba haddii uu yidhi anigaa ugu mudan oo mid walba uu soo sharaxay soo bandhigay siyaasado dadweynuhu sidee u fahmayaan sidee u kala qaadanayaan dadkaas tirada badan dhowr iyo tobanka dhowr iyo labaatanka musharax ama dhowrka boqol ee xisbi ama musharaxiin ee doonaya mid walba in reerkiisa ama halka uu ka soo baxayo ee constituencygiisa kursigiisa meesha uu yaallo sida uu u dooranayo qofkii muwaadinka ah saxaafaddii marka waxaa laga rabaa inay u bayaaniso kow marka koowaad qof walba wixii uu sheegtay ee usoo bandhigto labo marka labaad siyaasadahaas wixii sharaxaad u baahan dadweynaha ay u sharaxdo iyo sharaxaaddaas waxaa soo gelaya in ay soo bandhigto dad aqoon u leh siyaasadahaas kala duwan ee lasoo bandhigay musharaxiintaas kala duwan iyo xisbiyadaas kala duwan isa soo taagay masraxa ee leh bulshadii danihiina annagaa wadna sidee bay maaragtay saxaafaddii ugu howlgelaysaa ama muwaadinkii siduu codkiisa ugu dhiibanaya waayo jahwareer ayaa ku dhacaya jahwareerkaas waxaa la rabaa marka saxaafaddii inay ka saarto sidee uga saaraysaa waxaa loo baahan yahay in ay doodo qabato waxaa loo baahan yahay in ay analysis ama ku samayso aada u lafagurto oo isla markaana usoo bandhigto maxsalka aakhirka dadweynaha iyagaa raacaya oo raadinaya laakiin adiga waxaa lagaa rabaa inaad tiraahdo ninkan siyaasiga waxan ayuu kuusoo bandhigay waxan uu kuusoo bandhigay kan kalena sidan ayuu kugu soo bandhigay marka la isku geeyo nin walba sidana uga hadlay ayagii laftoodii mararka qaarkood doodihii la iska hor keeno waxyaabahay sheeganayaan siday uga rumayn karaan in la weydiiyo marar badan waxaa dhacdo qofka siyaasiga marka uu doorasho ku jiro in uu wax walbo wanaagsan dadweynaha u sheego codbixiyaha uu u sheego hadhowna aanu waxba qaban marka sidee loo xaqiijin karaa taa lafteeda su-aalaha muhiimka ah ee saxaafadda looga baahan yahay ayay ka mid tahay inay soo bayaaniso oo dadweynaha usoo bandhigto qof walba jawaabtiisa markaas qofka codbixiyaha ah muwaadinka ah isaga ayaa go-aan ugu dambeynta ka gaaraya marka howlahaasi marka saxaafadda ay soo bandhigayso waxaa looga baahan yahay marka ugu horeysa dhexdhexaadnimo waxaa looga baahan yahay
inaanay cidna u eexan waxaa looga baahan yahay in ay runta sheegto mar walba waxaa looga baahan yahay sugnaan iyo saxnaan ay soo bandhigto wax walba sida ay yihiin oo aanay waxba ku darin waxna buunbuunin isla markaana bulshada wax saxa oo xaqiiqa marka loo soo bandhigo fursad waxay u yeelanayaan inay helaan go-aan ay qaataan ay ugu dambeynta ku gaari karaan cidda xisbiga iyo halka ay raacayaan iyo siyaasadda ay taageerayaan ugu dambeynta. dabcan xaaladda Soomaaliya hadda la joogo markaan usoo gudubno marxalado kala duwan ayay soo martay nidaamka doorasho ee la qaadanayo nidaamka doorasho in la qaato ay ahayd sanadkan 2021 waxay ahayd cod iyo maaragtay one man one vote qofkiiba cod maaragtay cod xor ah inuu yeesho oo qof walba muwaadin Soomaaliyeed inuu xaq u yeelan karo inuu codeeyo laakiin nasiib daro siyaabo kala duwan iyo maaragtay doodo siyaasadeed iyo madaxdii kala duwanaa ilaa hadda maantadan la joogo waxaan la garanayn go'aanka kama dambaysta ah nooca doorashada uu noqonayo laakiin 17 September 2020 shirka ay gaareen madaxda gobolada ama madaxda steedyada maamul goboleedyada iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha waxay go'aan ku gaareen in la qabto doorasho 101 qof oo ergo ay dooranayaan xildhibaan kasta markaas kadibna xildhibaanada soo baxa 275 ah ay doortaan madaxweyne halka qorshuhu waa one man one vote hadii ay dhacdo waxay noqon lahayd xisbiya inay tartamaan xisbiyadaas marka ay tartamaanna doorashada baarlamaanka xisbigii ugu aqlabiyad bataa markaasi uu ama isagu doorto madaxweynaha ama sidii hore lagu socdo maaragtay xildhibaanadii soo baxay 275 ah ay markaasi madaxweynaha doortaan markastaba aqlabiyadda cidii leh ayaa dabcan ku guuleysanaysa aqlabiyadda baarlamaanka qofkii haysta xisbigii haysta markaas ugu tirada badan ayaa dabcan guuleysanaya taa markaan u galno marka weli doorka saxaafadda isla sidii hadda aan ka soo hadalnay ayuu noqonayaa waayo 101daas ergo ayaa noqonaya muwaadiniintii codka dhiibanaysay marka kuwaas ayaa laga rabaa sidii marka ay u codeyn lahaayeen tusaale ahaan in loo soo bandhigo deegaan doorasho kasta cid kasta oo u tartamayso kursigooda waxaa laga yaabaa 10 qof inay u tartamayso 10kaas qof saxaafadda waxaa laga doonayaa mid walba si sax inay ugu adeegaan musharaxiinta kursi hebel u sharaxan waa 10kan qof kow taariikhdooda nololeed laga sheekeeyo marka labaad laga hadlo siyaasadahooda maxay ku doodayaan inay bulshadooda u qabanayaan howlaha ay isleeyihiin bulshada ku guuleysan kartaan hadduu ku jiro xildhibaan hore isaga laftiisa la weydiiyo maxaa hore u qabatay maxaad se laguna challenge gareeyo ama lagu maaragtay tartansiiyo sidee maaragtay hore waxaas u sheegtay waxaasna maadan qabanin soo marka doodii bulshada in loo soo bandhigo sida cad qof walba oo muwaadina oo ergadaas ka mid ah uu jeclaan lahaa in loo bayaaniyo qofkaas hore u haystay xilka wixii uu qabtay iyo wuxuusan qabanin sidoo kale mararka qaarkood fursad loo siiyo in la hor keeno oo su'aalo uu weydiin karo sidoo kale waxaa muhiim noqonaysa in iyaga laftooda la iska hor keeno oo ay doodaan ugu dambeyntiina bulshada waxaa u cadaanaysa marka ay fursado badan u helaan ama iyaga ay su'aalo weydiiyaan ama musharaxiinta su'aalo ay isweydiiyaan ama saxaafadii ay soo bandhigto si xaqiiq ah oo runta ku saleysan oo cadaalad ah oo aan cidna loo eexanaynin dhexdhexaadna ah marka ay soo bandhigto cid walba fursad waxay u helaysaa si madax bannaan oo mabda ku dhisan waxaan ognahay meelaha qaarkood in aad loo sheego in lacagta ama qaadashada laaluushka ay aad ugu badan tahay oo la isku doortaba in musharaxiinta mid walba midkuu ka lacag badan yahay ayaa la sheegaa in maaragtay uu uga fursad fiican yahay in isaga uu kusoo baxo isaga la doorto marka tan haddii saxaafadda doorkooda iyo shaqadooda ay kasoo baxaan waxay keenaysaa qofka muwaadinka lacag kastoo loo soo bandhigo
ugu dambeynta in maaragtay uu mabdi'iisa iyo wixii go-aanka uu ku gaaray saxaafaddu hadday si saxa u shaqayso ay usoo bandhigtay uu marka dambe go-aankiisa ku qaato oo cod saxa oo meel saxa haysto iyo musharax saxan ugu dambeynta inuu soo baxo xaaladda hadda lagu jiro dhinaca saxaafadda iyadoo weliba doorashadii inkastoo mar la carabaabay waqtiga ay dhacayso laakiin haddana aan weli go-aan kama dambeysa laga gaarin markan aan duubayno videogan halkan aan ku duubayno dabcan waa wax aad looga murugoodo runta marka aan ka hadalno dabcan xaaladda hadda jirta waxay tahay waxaad arkaysaa horta saxaafadda inaan waxaa muhiima kala saarno maxaa saxaafada maxaanse ahayn saxaafad marka ugu horeysa saxaafadda waa inta badan warbaahinta guud ee la yaqaano ee maaragtay ee leh raadiyaha telefishinka iyo iyagaasoo adeegsada warbaahinta bulshada oo ay ka mid yihiin sida twitterka youtube-ka iyo wixii la mid ah inahaasoo dhan markaad isku darto marka waxaa sii dheer oo iyagana bulshada saameyn ku leh barihii bulshada inta badan cid kastaa adeegsata ma aha oo keliya warbaahinta guud ee aan hadda soo sheegnay sida raadiyaha telefishinka ee kuwa la yaqaanaha ama ha ahaadeen kuwa dowladda adeegsato ama ha ahaadeen kuwa gaarka loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa ganacsatada ay leeyihiin ama kuwa siyaasiyiinta aan markaas xilka haynin ama dowladda aan hogaaminaynin ay leeyihiin intaasoo dhan marka la isku daro waxaan ka hadlaynaa si gaara saxaafadda guud maaragtay ee adeegsata raadiyaasha iyo telefishinada kuwaas ayaa inta badan ah kuwa mara sharciga iyo nidaamka iyo waxyaabaha looga baahan yahay saxaafadda waayo waa hay-ado jira oo maaragtay saxaafadda ku shaqeeya kuwaasna waxa ay keentaa marka haddii iyaga ay qaldamaan inta badan bulshada baraha ay adeegsata ee caadiga ah bulshada inta badan waa shaksi qofka wuxuu rabo soo bandhigi karaa isagoo gurigiisa haysta gurigiisa jooga telefonkiisa haysta ayuu wuxuu soo bandhigi karaa waxyaabo cillado badan keeni kara waxaa jiri kara waxyaabo propaganda ah oo qofka xataa siyaasiga ah intuu lacag bixiyo dad adeegsado uu usoo bandhigo marka xaaladda hadda jirta waxa weeyaan in saxaafaddii waaweyneyd ay maaragtay ku milantay howlihii kala saaridda propagandada waxa ah maaragtay ay adeegsadaan xisbiyada siyaasadda ama waxa ah saxaafad saxa oo ah tii haddaay aan kasoo hadlayno in xaqiiqda la raadiyo runta lasoo bandhigo si cadaalada loo shaqeeyo soomaaliya hadda waxaa moodaa saxaafadda arrimahaasi inay ku milan tahay waxaa adkaanaysa inaad kala socdid warbixin ay kusoo gudbinayso warbaahin jirta in warbaahintaasi warkan ay soo gudbinayso uu yahay mid maaragtay lacagay ku qaadatay oo propaganda oo xayeysiis ah dabcan looma diidana mararka qaarkood siyaasad xayeysiisa in warbaahinta caadiga ay adeegsato laakiin waa inay caddahay oo aada leedahay maaragtay barnaamijkan ama qeybtan waa qeyb xayeysiis loogu talagalay xisbi hebel so markaas qofkii daawanaya waxaa u cad waxaan inaysan ahayn warbixin loo soo gudbiyey oo xaqiiqada ku salaysan ee ay tahay isxayeysiis ama propaganda ay diyaarsatay uu diyaarsaday xisbi gaara ama shaksi gaara oo musharaxa uu diyaarsaday haddii laakiin taa loogu soo bandhigo dadweynihii inay yihiin maaragtay wax saxa waa marin habaabin qaldan oo aan loo baahnayn marar badan waxaa arkaysaa warbaahin kuusoo gudbinaysa profileka qof musharaxa isla markaana si cad aada arkaysid maaragtay inay been uga sheegayso qofkaas taariikhdiisi nololeed oo wax badan oo aan jirin ay kusoo darayso wax badan oo jirayna ay ka saarayso taas marka hadda waa waxyaabaha dhaca ee maaragtay warbaahinada qaarkood aan shaksiyan ku arkay waana wax aada u xun oo u baahan in aada looga dhowrsado oo inta badanna keenaysa maaragtay de in kalsooni darro musharaxii ama xisbigii kale kan aada xayeysiinaysa maahana kii kale kasoo horjeeda wuxuu ku arkayaa qof oo maaragtay dhinac jira oo bias ah laakiin haddaad tahay warbaahin si saxa wax u tabinaysa si daacada cadaalada wax u tabinaysa dabcan cid kasta oo musharaxa markaasi waxay ku arkaysaa meel ay soo aadi karto warkeeda usoo bandhigan karto doodeeda ay ka qeyb geli karto marka
talada guud waxay tahay dabcan in warbaahintu ay ka dhowrsato waxyaabahaas aan hadda tilmaanay eexda iyo propagandada ay qaybta ka noqonayso keeni karta maaragtay inaan xataa qofkii muwaadinka ahaa fursad u helin in si cadaalada oo saxa uu maaragtay wax u doorto aakhirkana xildhibaan saxa sooma baxayo haddii nidaamkan ay warbaahintii guud ay ku dhaqanto